dhankaas iyo dalka Maraykanka haddii aynu eegnana nin Sacuudiyaana oo tababar milatari u joogay gobolka Florida ee dalka Maraykanka isla markaana ka tirsanaa ciidamada cirka ee Sacuudiga ayaa dil ka geystay xeradaasi dhexdeeda ilaa iyo haatan inta la hubo waxa dhintay 3 qof iyadoo sidoo kalena ay dhaawacmeen 8 qof oo kale sarkaal u hadlay ciidamada bilayska ee dalka Maraykanku waxa uu sheegay in baaritaan lagu hayo dhacdadani balse ninka dilkan geystay ayaa lagu magacaabaa Maxamed al-Sharaawi kaasi oo ka soo jeeda dalka Sacuudiga muddana u joogay amaba ilaa iyo sanadkii 2017 uu joogay dalka Maraykanka si uu qaato tababar dhanka ciidamada cirka oo Maraykanku uu siinayay ciidamada Sacuudiyaana hay'adda FBI ee dalka Maraykanka ayaa sidoo kale iyaduna baaritaano ku haysa dilka uu geystay ruuxani u dhashay dalka Sacuudi Arabiya boqorka dalka Sacuudi Arabiya waxa uu si weyn uga tacsiyadeeyay dalka Maraykanka dhibaatada uu geystay ninkaasi Sacuudiyaanka ahi isagoo sheegay in aanu matalin bulshada dalka Sacuudi Arabiya baaritaanada hordhaca ee FBI-du ay sameynayso ayaanay ku degdegin in ay ka waranto in ruuxani uu ku xidhan yahay ururo kale iyo in kale wararkaasi iyo wixii la xidhiidha halkan ayaad kala socon doontaan